أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا ضل ذاهبكم وما قوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه جديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا إلهي بينو مهد علينا دمانتين بركة الله وحين يغنو مهد علينا واردين تشرفت له كسو قيب قلي هي مرت شرف كالدين مركة حيقا أردينا شرفت له سنة في عانو فردين أين يغنى يعني لنا هاي هذه أدو مدنتين اللي ذكرا قيب قلي حفلدينا وقت روسك كوبا وحان dul istaagi doonaa laba qodob qodobka koowaad waxbarashada iyo ahmiyadda ay leedahay islaamka dhexdiisa qodobka labaadna iskuulkeenna iyo xagga u socday halka uu ka soo bilaabmay tooqadan ay dhamaystay bayna laba qodob iyo mid iska horan doonaa awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa qur'aanka ku tilmaamay qofka aqoonta leh iyo qofka aan aqoonta lahayn inayna sinnayn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay ka aqoonta leh iyo qofkii aan aqoonta lahayn inayna sinnayn hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun ayuu ilaahay tilmaamay miyay siman yihiin kuwa wax garanaya iyo kuwa aan waxba garanaynin qof kastaana
amarkii nebiga la siiyey ayaa u yaalla oo ah inuu aqoon kororsado inuu ilaahay weydiisto ilaahayna aqoon u kordhiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaalaa nebigiisa isagoo la hadlayo wuxuu ku yidhi waqul rabbi zidnii cilmaa waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow rabbiyow ii siyaadii cilmi iyo aqoon cilmiga shareecada islaamiga ah in la barto waa cilmiga koowaad ee mudanta ayna siino walihaadaa wasaaraddeena waxbarashada ee ayna ka tirsannahay haddaynu nahay ree horyaal waxaa mudanta la siiyaa waa maadada islaamik ayaa la siiyaa ama tarbiyada maadada tarbiyada ah waqtiyada qaarkood qiimo dheeraada ayaa lagu bixiyaa imtixaamaadka shahaadiga ah wax kastaale oo sharcigeenna islaamka ka hor imanayana dastuurkeenna ayaa diiday taasina waa masiye aynu dheernahay bulshooyinka kale ee caalamka qodobkeenna xigaa wuxuu yahay horyaal horta waa sida magaciisa kaalmaha ugu horreeya imtixaanka shahaadiga insha allah sidoo kale in iskuulku dardar fara badan ku jirto iyadoo tartanno fara badan loo qabto klaaska dhexdiisa iyo tartanno caadi iyaga ay layska hor keeno oo maalin dhaweyd loo taagnaa inaan koobku kala qaadnay si kubadda loo kala qaado iminkana insha allah waqtiyadan soo dhow aan insha allah samayn doono tartankii kol lamida kala sii casriyeysan kolley wax badan laga bedeli doono intii hore wax badan baa laga bedeli doonaa insha allah saan ku rajo weynahay sidoo kale annagu waxaan leenahay imtixaanaadkaygu sida iskuullada waaweyn ee ku yaalla gobollada waaweyn sida jaamacadaha simister baa la yidhahdaa simister 4 biloodba simister baa la yidhahdaa jaamacadaha marka la dhiganayo saa darteed 4 biloodba marba imtixaanaadka iskuulka laga qaadaa laakiin iskuulka horyaalu ka duwan yahay isagoo la jaan qaadaya iskuullada casriga ee gobollada waaweyn ku yaalla 2 biloodba mar buu qaadaa imtixaanaadka kaasoo hadda inagu soo foolnay xafladda xataa koobitaankayga waxaa noo sii suurtogeli waayey imtixaankii 2 bilo ahaabaa nagu soo foolnay bishan insha allah iminkaan ku jirno dabayaaqadeeda imtixaanada la qabanaya markaa 2 biloodba mar baanu galnaa imtixaanaad 4 bilood oo simister loo buuxiyana mar baan galnaa si imtixaankii markaa intiina laga doonayo 8 bilood waxaan galnaa 4 imtixaan wasaaradda waxay doonaysaa 8 bilood 8 bilood 4 imtixaan buu horyaal bixiyaa ardayga markaa aqoontiisa iyo tayadiisa sidaas ayay ku dhismaysaa السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء